ma ogtahay in injineer Turkiya uu bedelay warshadaha droneska isagoo dalkiisa ka dhigay hogaamiyaha caalamiga ah ee teknolojiyadda militariga? Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada kanaalkeena. maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc xiise leh haddii aad tahay qof han leh oo higsi leh. mowduuceenu wuxuu ku soo go-an yahay injineer Seljuk Bayraktar, maskaxda hormuudka teknolojiyadda droneska ee Turkiga. injineeriga buuniga Seljuk Bayraktar waa hormuudka teknolojiyadda droneska ee Turkiga, run ahaanta oo si weyn uga qayb qaatay horumarinta difaaca iyo teknolojiyadda militariga ee dalkiisa. welibana waxa uu aasaasay Bayraktar, waa shirkada hormuud u ah soo saarista droneska ee Turkiga, run ahaantii taas oo magac ku leh daafaha dunida caalamka oo dhan laga yaqaano. isaga oo sameeyey isbeddel weyn oo ku saabsan sida loo isticmaalo droneska ay waxba wadin iyo horumarinta teknolojiyada cusub ee militariga. mowduuceena maanta waxaan saldhig uga dhigi doonaa sooyaalkiisii, horumarinta, guulaha u gaadhay iyo tijaabinta iyo qaabka uu farsameeyey droneskan kala duwan uu soo saaray ninkan caanka injineerka, iyo saameynta uu ku leeyahay waddankiisa iyo caalamka dunida oo dhan. injineer Seljuk Bayraktar waxa uu ku dhashay Istanbul, caasimadda labaad ee dhaqaalaha ee Turkiga, sanadkii 1987. wuxuu mahaantii ka soo jeedaa qoys leh taariikh dheer ama sooyaal dheer oo ku saabsan ama ku soo go-an teknolojiyadda iyo waxbarashada. aabihiis waxaa la yidhahdaa magaciisa Özdemir Bayraktar. wuxuu ahaa injineer iyo hal abuur caan ah oo laga yaqaano Turkiga, gaar ahaan ku takhasusay teknolojiyadda, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah aabihii aasaasihii waxbarashada teknolojiyadda ee Turkiga wakhtigaa. hooyadiis injineer Seljuk Bayraktar sida oo kale Safiya Bayraktar waxay ahayd xildhibaan bulshada iyo inay caawiso waxbarashada, qaybta waxbarashada ka caawiso bulshada. injineer Seljuk Bayraktar wuxuu leeyahay laba walaal oo kale ah Mujdi Bayraktar oo ah isaguba xirfadle caafimaad ka shaqeeya, iyo Hussein Bayraktar oo sida oo kale ah injineer. qoyska Bayraktar ayaa si weyn uga qayb qaatay horumarinta teknolojiyadda iyo waxbarashada, taasoo dhiirigelisay Seljuk inuu waxa loo yaqaano ou noqdo dhinaca waxa loo yaqaano ou isku ku takhasuso dhinaca teknolojiyadda. injineer Seljuk Bayraktar wuxuu bilaabay inuu sameeyo horumarinta muhiima ee dhinaca teknolojiyadda sanadkii 2011. wuxuu aasaasay Baykar Makina, shirkad ka shaqeysa horumarinta droneska ee casriga iyo teknolojiyadda militariga. shirkaddan Baykar Makina ayaa si weyn ku guuleysatay inay soo bandhigto ama horumarito ay horumar ka keento qaabka teknolojiyadda Turkiga, iyada oo sameysay dhowr nuuc oo drones kuwa oo ku habboon howlaha militariga iyo xaaladaha dagaalka. Baykar Makina, shirkaddan uu sameeyey injineer Seljuk Bayraktar, waxay sida oo kale sameysay laba nuuc oo drones ah, kuwa oo la kala yidhaahdo Bayraktar TB2 iyo Bayraktar Akinci. labadan ay sameysay kuwaas oo run ahaantii lagu isticmaalo howlaha militariga iyo howlaha hawada ama qaabka hawada iyo duulistii waxa loo isticmaalaa. run ahaantii ninkan buuniga weyn injineer Seljuk Bayraktar sidoo kale tijaabooyin buu sameeyey iyo dahafuro drones ku ah. Bayraktar TB2 oo
dahafur oo ku sameeyay lagu sameeyay sanadkii 2014 wuxuu noqday mid kan waxay noqotay wuxuu noqday mid ka mid ah droomiska ugu muhiimsan ee Turkiga ee howlaha lagu qabto. Droomiskani ayaa run ahaantii marka aragtiin lagu isticmaalaa howlaha militariga, howlaha kale ee dadka shacabku leeyihiin. Run ahaantii waxay si weyn uga bedeleen qaabka loo isticmaalo teknolojiyada duulista militariga. Bayraktar Akinci sidoo kale waxaa la dahfuray sanadkii 2020 inkastoo Seljuk Bayraktar aan laga arki jirin shaashadaha social media oo ahaa nin daahsan oo laakiin ficilkiisa soo muujiya daahadiisa ku jira, bas laakiin ficilkiisa ayaa miiska dul yaala oo ahaa waxaa la arkay sanadkii ugu horreeyay sanadkii 2020 ayaa la arkay wejigiisa ayaa si fiican u soo muuday isagoo la jooga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan dhinaca uu yahay uu ka qabo gabadhiisa uu ka qabo ayaa 2020 ayuu soo bandhigay Bayraktar Akinci iyadoo lagu tijaabinayo dagaallo ka qayb gashay howlo ka dhacay Suuriya ay ka qayb gashay. Natiijada uu sameeyay ay ka soo baxeen iyadoo si weyn loo aqoonsaday qaabka shirkadda doonta uu sameeyey inay tala aqoonsatay waxyaabaha iyo saameynta ay ku leedahay dagaalada casriga ah. Waa wuxuu sameeyey diyaarad ay qof wadin laakiin ugu fiican oo markii madaxweynihii oo shil ku dhintay madaxweynihii Iiraan waxaa soo heshay Bayraktar Akinci baa soo heshay oo ku soo heshay qaab casriya. Abaalmar wuxuu ninkan injineer Seljuk Bayraktar wuxuu helay abaalmarino iyo aqoons weyn buu helay. Horumarka uu sameeyey Seljuk Bayraktar iyo guulaha uu gaaray ayaa run ahaantii uu ka helay abaalmarino. Ficilka uu sameeyey waxaa soo bandhigay sanadkii 2019 waxaa loo aqoonsaday maskaxda hogaamiyaha teknolojiyadda ee caalamka ee casrigan joogno ayaa loo aqoonsaday isagoo ku guuleystay abaalmarino muhiima saameyn weyn ku leh teknolojiyada Turkiga iyo adduunkaba. Wuxuu ku leeyahay magac weyn buu ku leeyahay Turkiga iyo adduunkaba. sidoo kale way ka galmato oo magacan Bayraktar waxay noqotay wadano badan ba iibsado Afrikaan iyo kuwa Aasiya ayaa iibsaday diyaaradan Bayraktar. waxaa loo aqoonsaday inuu yahay hal abuure iyo hogaamiyaha ka dhiga Turkiga mid kamida dalalka ugu horumarsan ee teknolojiyadda. run ahaantii ninkan Seljuk Bayraktar injineerkan iyo buunigan wuxuu hadda yahay mid ka mid ah hogaamiyaha teknolojiyadda ee caalamka isaga oo dhiirigelin dhalinyarada Turkiga iyo kuwa adduunkaba iyo dadkiisa iyo dad badan xiiseeya dadka xiiseeya teknolojiyadda. Mustaqbalkan waxaa la qorsheynayaa wuxuu u egyahay say sheegayaan inuu sii wadi doono horumarinta teknolojiyadda droomiska ah iyo inuu Turkiga si uu horumarkiisa sii ballaariyo horumarka caalamiga uu ku leeyahay saameynta uu ku leeyahay qaabka militariga teknolojiyadda. Injineer Seljuk Bayraktar ayaa sidoo kale sii wadi doona dhiirigelintii uu leeyahay qaabka hal abuurinta iyo awoodda oo ku faafi doona awoodda uu soo saaray Turkiga ee dhinaca teknolojiyadda diyaaradaha iswada ee dadka ay wadin. waxaan soo gaarnay gabagabadii mawduuciina maanta ahaa ee ku saabsanaa maskaxda ka dambeysa horumarinta teknolojiyadda ee Turkiga. ninkana uu qabo gabadha madaxweynaha Turkiga ayaa run ahaantii wuxuu sameeyey tusaale wanaagsan oo muujinaya sida hal abuurinta uga go-an tahay iyo kartida khibradda uu leeyahay oo ku guuleystay inuu soo saaro shirkado iyo diyaarado qaab teknolojiya u samaysan. sooyaalkiisina wuxuu ku salaysan yahay ka soo jeedaa xaafad sooyaal ay ku takhasusay teknolojiyad aabba ka yaqaana injineer wax dhigi jiray waxbarashada teknolojiga hooyo iyada xildhibaan ah. boys wuxuu ka soo jeedaa waxaa la oran karayaa riish ama waxaa la oran karayaa kusal go-an
teknolojiyad ayuu ka soo jeeda taaba u ogolaatay inuu isagana sii horumariyo awoodihiisii iyo khibradihiisii ku dhex jiray. Run ahaantii ninkan hal abuurka ah ee Samuel Beledar wuxuu noqday mid ka mid ah hormuudka ama maskaxda caalamka ee teknolojiyada ayuu noqday, isagoo saameeyey ku yeeshay waxbarashada droniska, qaabka wax loo barto, qaabka loo diyaariyo, qaabka loo abuuro teknolojiyada ay ku yeeshay saameyn weyn ku yeeshay iyo horumarinta teknolojiyada. xaggaan kusoo gabageyna mawduuciina maanta, waxaan rajeynayaa inaad wax fiican ka fahanteen. sidaa iyo insha allah nabadgelyo.